madaxweynaha maamulka Puntland ayaa shir degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada maamulkaasi. Wariyaheena Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya. madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo isaga iyo wafdigu hogaaminayo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa si degdeg ah isugu yeeray wasiirada ka maqan magaalada Boosaaso inay yimaadaan gudaha magaaladaasi. Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in kulanka degdega looga hadli doono xaaladii ugu dambeeyay ee dalka, waxaana warar idaacadda kulmiye ay helayso ay sheegayaan in kulanka diiradda lagu saari doono shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. wasiirada tagi doona magaalada Boosaaso ayaa ku biiri doona wasiiradii horey u raacay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani, kuwaasi oo gorfayn doona xaaladaha shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ee lagu soo xiray magaalada Muqdisho iyo qodobo kale oo ku saabsan xaaladda deegaanada maamulka Puntland. Saciid Cabdulaahi Dani ayaa horey u diiday ka qaybgalka shirka madasha iskaashiga Soomaaliya, taasi oo ka dhigan weli inaan la dhamayn khilaafkii kala dhaxeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. taliyaha saldhigga magaalada Jowhar ayaa digniin u diray ciidamada booliiska maamulkaasi. wariyaheena Bashiir Cali Daahir ayaa magaalada Jowhar warkan inuu ka soo diray. ayadoo muddooyinkii lasoo dhaafay cabasho ay jeedinayeen darawaliinta kaxaysa gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar iyo sidoo kale darawaliinta kaxaysa mootooyinka bajaadka kaasoo ay ka cabanayeen ciidamada booliiska ee la dhigay baraha kontarool ee ku yaala magaalada Jowhar, taasoo ay kaga cabanayeen in dhibaatooyin ay u geysanayeen. taliyaha saldhigga magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjaax ayaa sheegay in haatan loo baahan yahay cid walba ku dhaqan magaalada Jowhar oo dhibaato ay ka soo gaarto ciidamada booliiska ay la soo xiriiraan taliska saldhigga magaalada Jowhar si wax looga qabto arrinkaasi. waxaana uu sheegay in aysan dhici karin in ciidamada booliiska ay lacago sharci darro ay ka qaadaan gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar baraha kontarool ay kaga sugan yihiin. baaritaanna magaalada maadaama aan anagu magaalada booliiska oo la wareegay waxaan xaqiijinaynaa taasi ma ahan dhibaato, waxaan xaqiijinaynaa amniga magaalada waa xaqiijinaa magaalo cidna lacag kama qaadan karaan ciidamada booliisku, cidna wax ma weydii karaan, annaga ka mas'uula, annaga u taagan. anoo fursadda ka faa'iideysanay waxaan leeyahay dadka reer Jowhar dhammaan cid allaale cid ciidamada booliiska kala kulanto culeysyo ama caqabado xafiiskan waa u furan yahay, saacad darteedna soo wici kartaa, waa noo yeeri kartaa, annagana tilaabaad ka qaadina askari allaale askari lagu arko waxay faraxun. tani markii ciidamada booliiska ay la wareegeen ammaanka magaalada Jowhar ay kala wareegeen ciidamada militariga ay ku sugnaa baraha kontarool ee ku yaala magaalada Jowhar ayaa haatan waxaa soo kordhayo cabasho ay jeedinayaan darawaliinta kaxaysa mootooyinka bajaadka ee ka howlgala magaalada Jowhar, kaasoo ay ka cabanayaan in lacago sharci darro ah ka qaadaan ciidamada booliiska ee baraha kontarool ay ku sugan. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. al-shabaab iyo kooxda la magac baxday macawisleyda ayaa saakay ku dagaalamay xadka u dhexeeya gobolada Bakool iyo Hiiraan. wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. saakay ayaa waxaa dagaal khasaare geystay oo ka dhacay xadka isku xiraya gobolada Bakool iyo Hiiraan ee ka kala tirsan maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Hirshabeelle, waxaana u dhaxeeyay sida la sheegay kooxda macawisleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab. dagaalka ayaa la tilmaamay inuu yimid kadib markii kooxda macawisleyda ay weerar ku qaadeen saakay aroor hore dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugnaa tuulooyin hoos yimaada deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan. maxamed cali istakiin oo taliye u ah kooxda macawisleyda ku sugan oo gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaalka ay qaadeen uu kaga dhintay 2 askari, midna uu ka dhaawacmay, halka al-shabaab uu ku sheegay inay ka dileen 5 dagaalame iyo inay ka qabsadeen 2 gaari oo nooca dagaalka kuna xiran qoryaha dhishika sida uu tilmaamay. sababta dagaalku ay kula jiraan al-shabaab ayuu ku micneeyay inaysan doonin dadkooda inay ku noolaadaan cabsi xoogan iyo in laga qaado lacago uu ku tilmaamay inay baad yihiin. dagaalka ku dhaawacay deegaanka la yiraahdo meel u jirtay dhowr iyo 10 kiiloomitir ma garantay xuduudka Hiiraan iyo Bakool. macawisley annaga qaadnay oo waxaan ku qaadnay meel ay ku xoolo qasheen oo fariisimo ay leeyihiin al-shabaab ma garantay. weerar la qorshay waa lagu qaaday hadilaha deegaanka ugu guuleed ma garantay, gacan ku inta deegaanka annaga qabsanay. annaga nin baa nooga dhintay, ninna waa nooga dhaawacmay. 2 gaari oo dhishika waa ka soo qabsanay, 5na waa ka dilnay. saacadaan kula hadlaa 12 subaxnimo salaada subax markii la galay ayaa weerar ku qaadnay. saacadaan kula hadlaa saacadan goobta anaga haysano. kooxda macawisleyda ayaa goobo badan oo kamid ah dalkeena Soomaaliya waxay kula dagaalameen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ka dhashay khasaare kala duwan, waxaana jirin ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay al-shabaab ee ku aadan dagaalka saaka la sheegay in lagu qaaday.
abaar daran saameyna ku yeelatay dadka iyo duunyada ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan deegaanka halgan ee gobolka hiiraan. wariyaheena cali cilmi salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada laga soo sheegayo deegaanka halgan ee gobolkaas, iyada oo ay jiraan degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan oo ay go'doomiyeen al-shabaab ayaa haddana waxa aan saameyn wanaagsaneyn ay ku reebtay nolosha qoysas xoolo dhaqato ah, waxaana laga deerinayaa xaaladda nololeed ee dadka ku sugan deegaankaas. maxamed guuhaad warsame oo ah gudoomiyaha deegaanka halgan ayaa waxa uu sheegay in ay halgan ka jirto abaar daran, isaga oona sheegay in aysan jirin biyo, cunno iyo xoolihii oo baaba'ay. waxa uuna hadalkiisu ku sii diray in dadka deegaankaas ay qarka u saaran yihiin in ay biyo iyo baad la-aan ay u geeriyoodaan. halgan dadka ku noolnayo dhibaato bini'aadanimo xagga abaaraha, xagga roobyarada, xagga biyalaanta, si kastaba biyalaanta ugu daran. saddex elo riigeeda saddexdii xeelna way hallaabeen, mid ayaa hoogaay laloo dooriyaa marka oo dadku ay bulshadu ay adduuna ku jirin koronkoro ku tahay. iyadoo biyalaantii abaartii jirtay xoolihii dhaafeen, ayaantana la socotay roobka gobolada dhexe inuu ku yaraay, haddana ceelishii ayaa ibara. meel haddii biyo laga waayana sidiisa baad waxba ma galo. marka muhiimada koowaad waa biyalaantaas. muhiimada labaad waa baahi xag walba ka saameysay. dadku markuu xoolaha u joogaan xoogaha roobana haasto, dadka kaleeto oo danyarta waa isku nool yihiin. maadaama roob yarow dhacay ay beere ayna jirin, haddana ay xoolihii abaaru dhacday ee xoolihii meelihii ka fogaadeen, way agdi joogan ay ka ba'een. dadka si kastaba waxaa usoo saameysay xaquuq bini'aadanimo meel walba. biyola-aan, baahi, xanuun, sow kastaba aad u liidatay ku jirtaa meesha. dadka markaniyo si degdega waxawaaye waxay u baahan yihiin xaquuq bini'aadan, tu hay-adeed si diblomaasi ku timaaday iyo tu bini'aadanimo iyo si kastaba way u baahan tahay. dowladda soomaaliyana dadkaas haddii la kujidiyo daneeyaasha haddii la kujidiyo meel kasta ka gurmado. al-shabaab ayaa goodoomiyey halgan, taas ayaana sababtay in ay xaaladdu ay sii adkaato. marka laga soo taga halgan, al-shabaab ayaa 6 sano ka hor godoomiyey degmada buulo barde kadib markii ay kala wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom, gaar ahaan kuwa jabuuti. mana jirto wax gaadiid ah oo gala ama ka baxa degmadaas, iyadoo aysan wanaagsaneyn nolosha qoysas tabar yar oo ku nool degmadaas. maamulka Jubbaland ayaa ku baaqay in gurmad degdeg la gaarsiiyo deegaanada ay abaaraha ka jiraan. wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. xilli deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland ay ka taagan tahay abaaro baasan, isla markaana dadka deegaanka ay ka cabanayaan biilaan, ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Maxamed Faarax Darwiish waxa uu sheegay in deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland ay ka jirto abaaro, isla markaana waxa uu sheegay in gargaar degdeg ah loola gaaro dadkaasi, isagoona baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamka si wax looga qabto dadka ay saameysay abaarta xilligan ka jirto deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland. waxaan rabaa inaan abiil dheer aan u jeediyo cid allaale iyo ciddii ka caawin karta ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada abaar ku haftay biyo la'aanta, hadday hay'ado caalami yihiin iyo hadday hay'ado local yihiin iyo dowladda Soomaaliya intaba, in aanu helo mucaawino degdeg ah, taasoo ay ugu badan tahay wixii dadku ku noolaan lahaa iyo wixii xooluhu ku noolaan lahaa ay ku noolaan lahaayeen, oo ay ugu muhiimsan tahay biyo iyo raashin iyo daawo. haddii aan sii kala qaado dhammaan gobolkan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gado, abaartu waa saameyn. meelaha hadda qayladhaantu aad nooga socoto waxaa ugu xoog badan gobolka Gado iyo gobolka Jubbada Hoose. Jubbada Dhexe cadawgu gacantiisa ku jirta. masalan beelaha ama tuulooyinka waaweyn iyo degmooyinka gobolka Garbaharey, Gado magaalo madaxdiisa Garbaharey, degmada Elwaaq, Rays Qode, Ceel Guduud, Raanweyn, Likooley, Faahfaxdhuun, Buusaar iyo Buurdhuul, xoole iyo dadba maantay waxaa haysa dhibaato aad u ballaaran. waxaan marka abiilkan aan u jeedinaynaa waxa weeye in sida si u dhaqsi badan, hadday ahaan lahayd shacab wax haysta iyo hadday ahaan lahayd hay'ado iyo dowladda Soomaaliya, dhammaanba waxaanu leenahay war dadkaas Soomaaliyeed maanta ceelna uma qorna, cidna uma Ilaahay baa u maqan. ka sokow waxaan codsanaynaa in si degdeg loola soo gaaro mucaawino. deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland waxaa ka taagan abaaro xooggan, isla markaana dadka deegaanka intooda badan ka cabanayaan biilaan, kuwaasi oo sheegay in ceelashii ay ka cabiyeen biyaha ay duugeen ciidamada Kenya.